مددالada soo aad iyo aad u soo qabanqaabiyeen haweenaha maamulka Awdal State waxaanu leenahay dhammaan martisharafka Soomaaliyeed ee madasha fadhiya soo dhawaada inagoo soo kala hori doona barnaamijka qaabka u dhigi doono marka hore waxaan ka bilaaban doonaa ayadaha quraanka kariimka waxaan inoo akhri doonaa walaalkay Qaasim soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حياة القرآن الكريم كان له قرآن على إسلام كل ما عليه الصلاة والسلام نبي مسا سويدي وحنا نتلاونا القرآن كي يمكن السبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي نوعا على سورة القرآن يسد ويسنون لكستين برنامجين بقى حفلتنا أن إلهي مدسكم إذا وسوق قلبي وسنية بحكبه لما أنتين بإلهي سبحانه كامل وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله حفظي oo idin soo diraya sanad guurada labaad ee la baliyay hambaliyay iga gaarsi marka salaataasina waa la soo gaarsiinay waxa in farxadayna qayb ka noqdo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay maamulka Awdal State uguma talagelin imiga maanta inaan halkan ka sheego ama aan war dheer ka fidiyo Awdal State waxay tahay waxay soo martay iyo marxaladeeda waa laga dheersan yahay halkay maanta joogtana waa la wada ogyahay waayo haddii imiga 2 sanadood
أما هل سنة بدأ من لبس سنوات هذين يصير لهاي دحاب بويا سون مقولها مركز هاو مثل كلنا كديرانو لكن وحنا شيء يا أبو دري أو درستي سيكون بلاوتي يسقي لوجو تلاقي يكون سقطه مرحلة فرضنا نايسون مرتي كنت يوم نرجع على المرسو مركز عوا مثل كنا هذا البلد وين تابع سيسن وحلا هاي دمان بشر وين غير أوضل يا دمان وين الصوماليين سفي عنها كل عيدان مالين تقييمها هي قاعدة وقلتي مالين تأنسوبيني وايو كل ما مالين بيننا هاي مكان تنوع مالين تأوديسي مكان واحد هاي وقت جاي هم سوق قابلين يا همبليو يو وقت في عرض قالتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يوم بعد هاي بروفيسور مسعود بين كلامه مامك أوسي سيدا هورين كوشير ولا للعاو بالبدو هذا يوم قبنا دونان هل كان محنوط الكلام بالدارين بنكسر بالجنو وحندوننا مركات لنا كسر وينو قدوميها جالية الصومالية مدن عبد عمر علي مدن عبد كسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله هذا ما صدق ولا ليال أنت كذب waxaan jeclahay marka hore inaan u hambaliyeeyo Awdal State Awdal iyo Khaatuma isagayda sanaraalaada inaan u hambaliyeeyo Awdal State xafladan qiimaha badan qiirada leh dadka xushmada iyo sharafta mudan ay ka soo qayb galeen lagu xusayo sanad guuradii Awdal State waa idin hambaliyeynayaa waxaan leeyahay waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan intaa kadib walaalayaal waxaan u malaynayaa waxaad u istaagteen waa midnimada ummadda Soomaaliyeed midnimada ummadda Soomaaliyeedna runtii waa mid muqadas ah oo waajib ku ah qof kastoo Soomaaliyeed inuu qaato maxaa yeelay kulligeen waxaan filayaa inay tahay waxaana deeqaa midnimada hal yaroo tusaalaadaan soo qaato maanta adduunka waxaa ugu awood badan baa la yidhaahdaa ilaahay baa awoodee waddanka Maraykanka horumarkaas waxa uu ku gaaray awooddaasna waa badnaashaha uu ka badan yahay inta kale waad ogtihiin inta state oo isku tagtay iyo inta waddan isku tagtay uu ka kooban yahay waddanka Maraykanka taasina maanta waxay siisay inuu noqdo awoodda keliya ee caalamka ee jirta waad ogtihiin qarankii Soomaaliyeed meesha uu gaaray waad ogtihiin ciidankii qaranka Soomaaliyeed meesha uu gaaray waad ogtihiin inaan noqonnay Afrika dowladda ugu horeyso ee ciidanka markii laga hadlayo ciidanka qaranka dowladda ugu horeyso ee ugu ciidanka badanna ee ugu awoodda badanna ee loo bixiyay libaaxii Afrika inaan mar noqonnay waad ogtihiin kulli taasna walaalayaal waxaynu ku gaarnay waa midnimadana waxay ka bilaabatay waa waqooyi oo soo qaaday midnimadii oo koonfur keentay iyo koonfur iyo waqooyi oo midoobay halkaasay ka soo bilaabatay taasina waxay noqotay runtii mid dhaliso guulo badan oo lagu guulaysto intaa kadib marka anaan hadalka ku dheeraanayay waxaan jeclahay 22 sano kadib burbur ah waxay jeclaan lahaa inaan ismaqalno walaalayaal 22 sano burbur ah iyo dhibaato ah
waxaana gaarsiiyey kulligeen waan ognahay waxaana gaarsiiyey dhibaatadana gaartay waxaa koobka ah qabiilana gaarsiiyey iyo kala qaybsanaan iyo waxaan isku dilnay nin jeclaysi iyo waxaan isku dilnay gobob walaalayaal maanta waa in aan cashar ay noo noqotaa wixii aan soo marnay iyo dhibaatadii aan soo marnay waa inaan ogaana oon xusuusnaan inta dhallinyaro inooga baxday ee nooga dhimatay waa inaan ogaanaa inta nin waxgarada oo ummadda Soomaaliyeed qiimo uga fadhiya nooga dhintay waa inaan ogaanaa inta adduunyada aan uga harnay maanta 22 sano adduunka waa ka harnay dib aan uga harnay waxaan marka aan ku gaari karnaa oo sharafteeni karaamadeeni dadnimadeeni Soomaalinimadeeni aan ku soo celin karnaa waa inagoo qaadano midnimada waa inagoo ku midoobno calanka kaliya ummadda Soomaaliyeed marka waa soo gabagabeynaya halkeeda waa soo gabagabeynaya halkeeda waa soo koobaya laakiin waxaan jeclahay inaan ku soo koobo nuxur inaan ku soo koobo waad la socotaa shalay waxay ahayd maalintii ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxay ahayd maalin aan ku faanay waxaa maanta ay joogtaa in ciidanka qaranka Soomaaliyeed uusan hal mid ahayn ee uu ku kala kooban yahay gobollo iyo qaybo wali ay jiraan inkastay jirto maanta dawlad Soomaaliyeed oo la isku wada raacsan yahay oo madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamed taas marka kala qaybsanaantaas iyo liigkaas iyo dhibaatadaas jirto walaalayaal waxa kale oo uga bixi karnaa innaga diaspora haddaan nahay waxaana loo ka baahan yahay kaalinteena inaan gudano kaalinteena aan gudanaana waa mid badbaadi karto dalkeena iyo dadkeena ogaada hooyada Soomaaliyeed ee Soomaaliya maanta ku dhiig baxayso ee daawo aan haysanin ee isbitaal aan haysanin ee aan haysanin cid daryeesh aan haysanin ee dhaqaale aan haysanin haddii aan isku duubano dadkeena jaaliyada dibadda waa awoodi karnaa inaan badbaadino walaalka miyayna badbaadin karin hooyada Soomaaliyeed miyayna badbaadin karin waa badbaadin karnaa walaalayaal marka aanu istaagno innagoo isku duuban oo kala qaybsanayn oo hal mida oo calanku midaynayo oo Soomaalinimadu midaynayso oo dadnimadu midaynayso oo waxa aan nahay midaynayso oo diinta islaamku ay midaynayso walaalayaal aanu istaagno dalkeena iyo dadkeena waad ogtihiin Eritrea Soomaaliya intay la dagaalamay waxa uu istaagay Eritrea oo dhisay oo heerka maanta ay joogto gaarsiina waa diasporadu meelo badan bay wax ka qabatay waad ogtihiin Israa'iil waa awood wadanka maanta maxay ahayd ugu dhaqaalaha badan adduunka ku jira waxa heerka gaarsiina waa diasporada wadamo badan oo adduunka ka mid ah waxa uu istaagay diasporadoodii dhib kastaba aan soo marno si kastaba aan meesha ku nimaano laakiin nolosha aan haysanaa maanta way ka fiican tahay nolosha ay haystaan dadka gudaha jooga haddii aan anagoo isku duuban aanu istaagnana walaalayaal waxaan aaminsanahay in inagu aan noqon karno remote control lahaa oo isku geynahay Soomaaliya oo mid ka dhigi lahaa oo calanka ku miday lahaa waa ku dheeraaday hadalka aad iyo aad u mahadsantihiin sida dhagihiina ii siideen waxaanan rajaynayaa sida ay u bilowday Awdal sida ay u bilowday Qaatumo iyo sida kuwa kaleba ay u bilaabeen in la adkeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waana mahadsantihiin
مارسية هاي دوبيات جالية الصومالية وأنا عبد عمر سيد قيمة الله وهذا أما قيرة يكتبته الواحد يقول عطسنا إن شعب كان ماشى سبيل فضلا أن نورنا أجازين كان ماشى قف الدولة إنه تلفون كل هذا فضلا وإنه تبدأ ولا بحر إنه دور النمبر وبحصل صعد برنامج كنا ولي waxaan ugu doonaa barnaamijyada qaybteeda hore waxaan doonaynaa oo imika soo galay oo aad lagu soo dhaweeyay madasha quruxda badan leh gudoomiyaha guurtida guud ee qowmiyadda Awdal Haji Maxamed Gaafur Xamuuta Maxamed Furan ma lagu soo Haji Maxamed saxab ma maqlo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورتمبل هذه الاسبوع بعده وإن إلهي لقى عبصده صلوات هذه الاسبوع بعده وإن نبينا محمد لقى صلى عليه الصلاة والسلام صحاب وعن لهاي بسم الله الرحمن الرحيم dadku waxay oran jireen beer qaatadu markay beerta qodayaan wixii la bilaabo ayaa baraka leh bismillahir rahmanir rahim ayay oran jireen marka waxaan leeyahay bismillahir rahmanir rahim kala waxa weeyaan dhammaan dadka meeshan isku yimiday aad iyo aad baan salaanta islaamka idinku salaamaya anigoo ah gudoomiyaha guurtida UK ee Awdal iyo salaam ballaaran oo kashkay laabta ka soo godayna waan ka sidaa anigoo maanta shir guurtida ku jiray dabeedna imika idinka idin soo siyaartay salaanta wadiga gudoomaysa labaad anigu aan ka tirsanahay guurtida Soomaali weyn ayaan ka tirsanahay min badan ninka boodaya inaan dheeldheer nahay dheeldheer ma yihin waxaan ku jira anigu maanta rajistarka madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya magacaygu hor yaala taaro ku bashaarnay hadalaya gabadha heesi jirtay ama heelay tagi jirtay ama ciyaari jirtay gabadhu wala guursaday waxay tiri maxaan dawrani maanta waa dhabe waxaan ilaahay maanta waxa dhawtaa ma jirto ee waa dhab dhalinyaro iyo waayeel يا إيراني يا هويمبا وحنا ما توادب بالله ما قالوا عليه هاي جمهورية إلى عود الجرين عود الاستي إلى الجرين هاي لو بدي لهاي هاي ندري لهاي بودي يوم وأنا جوني وأسمعني وأتبعني ما تسوي علينا هاي كويلها وضي ماله دمر ينام يرير
يا بود بود يا الهايو ما تمنى هركا هركا يو بيركسيكو وكسي ودينا هدي لهي lagu garab galo oo ilaahay lagu karaameeyo ilaahayna waxa ka baryaynaa inuu lagu karaameeyo oo talada iyo tawfiiqda iyo tirada wanaagsan ilaahay lagu garab galo iyana ka rajaynaa waxaan jeclahay maanta meel ay joogtaba Soomaali inay mid tahay oo ila kala maarmaynin oo mid kaliya tahay waxaan idin sheegayaa waxaa jirayay inagu haddaan Soomaali nahay saddex baan ku noolay waxaan ku noolay dawlad iyo duuniyo iyo daad baan ku noolay dawladii way duntay daagii la qodanayayna raxmad ilaahay way yaraatay duunyadiina yaa dee waxay u tabaracmada dalweedayana way yaraatay markaa waxaan idiin sheegayaa dawlad waan ku noolayno islaanta ama askari qaba ama ka raani qabaay aroortii markii shalmada bixida dhakaa ka uwato koriga way qaadanayso sariibadu bay tagaysay korkayga timaadana dawaxinaysa sacawteedin bay haynaysa baatana islaantii waa taa bacadka dabada ku haysa ee tamaandho iyo xaabo xidisa bay iibinaysa waxay noogu wacani beel dawlad la'aanta weyga haddaa sanaaka dawlad hayno سأب سريبات دبوا كليل هاي هو كذا ودريت كليل هاي وده جالس كمان يمادين وحنا نقول هذا الدولة الله الدولة تامة أو ترقية أو تيرسن الله ينسيه جاء قدر إني إلى خبر إني إلى هجر رحمة ينسيه وبرلي ما هي برتني الدنيا لني أكو هجر بحنو إني ينسيه إلى هاي نوبريا تاسواتا والله ما تعرفوا نكي مولي إن أنا نشتاق أولي الجريرو ما تبين جوك تعرف يا لكا استيقظوا الكجرينو يا أكا جوتك صورنا بوكال وكما صوغ الشوق يا نجار تجي مقر دعاء غفور يا الله ما تعرف كان كأنه نعرف إن الدنيا كيم بود يوم مرد ما إنه دومان ما إنه دعاء دعينا ما أكيد نسيت جو تابع لنا مثل ما
oo beesha doonta Soomaaliyeed ka timid xaq ku diiday isagoo maxamed ku